laba daraadle dadka Soomaalida dhulkooda calanka buluuga xidiga bartamaha u yeelo la saaray misla waxa ay sii wadeen sidii ay u gaari lahaayeen gobonimada dhabta ee runta maralaala markii calanka la saaray muddo yar dabadeed dhanka koonfureed ee jamhuuriyadda waxaa ka dhacday doorashadii siyaasiga ahayd ee u horeysay 1956 doorashadaasina waxaa ka qayb galay 10 xisbi oo siyaasiyiin ah kadib wax yar dabadeed waxaa la magacaabay dowladii daakhiliga ahayd dowladaasoo ay ka koobnayd dad Soomaaliya iyo Talyaanigi isla markaa gabi ahaantood waxa ay isku dayeen inay xijiyaan oo ay meel ku xirxiraan niyadii ummadda Soomaalida ay ugu dagaalamayday sidii ay ku gaari lahayd gobonimadeeda dhabta waxaanay ummadda gudaheeda ku beereen khilaaf iyo qabiilnimo iyo waxyaabo kaleeto inkastoo dadku dhibaatooyinkii markaa uu la kulmay kadib intii doorashada ay dhacday ay ka xoog badneed oo ay ka dhibaato badneed intii horaan ay u soo mareen intii dagaalanka gobonimada ay ku jireen misna uma aynan suuro gelin in niyadoodii ay burburto ee waxa ay sii labalaabeen sidii ay ugu dagaalamayeen gobonimo doonkii 1960 Juunyo dhanka waqooyi ee Soomaaliya gobonimadiisii ayuu u madax banaanaaday taariikhda markii ugu horeysay dadka Soomaalida ayaa calankii oo madax bannaan ee ka suran ciid Soomaaliya oo xur ah laga taagay gobolka waqooyiga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaalida kasidaatan sabay calankan sugaynayeen sahankiisayno sharma waydo hilaclayo sagal maanta daruurado sigadiinaga maydhayo saqnaxaan wahaye kii soo saaray cadceedow samada kiiwekaaye xidiga mid la siiyayow saaxibkii kala guuraye sareeyo manusqaamow aan siduu yahay eegnoye kala siibkana saare 4 casho kadib ayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku noolay jamhuuriyadda geesteeda koonfureed ay iyaguna calankii lagu qotomiyey oo halkaasi isaguna ka